maxaa deeqa iyo luuliya da kastaba habla koray aqalaba daryaala ayada dabta noogu galisaan u dabaaldegaysa xabayana dalandoolina waxaan uga daleeyahay xasan oo dunjiga aad tahay waa damac qaanaayo marka laba naqdagal reesliya darma nabada jiiftaan duga yeedhi weydaaba sida awrka doobidu dibnihiina dhaaftaayo duufaana kicisaano darxiid ku beermaay ratiga doxta lagu dhaxdo nabadu yay hadalkeena la taraarin xasan wuxuu yiri wax la yiri qiyaamuhu marka uu qariib yahay kun halo qayaayay laho qoys galiya aadmiga oo qof waliba la yaababa laga qaadaya daahay qalbiga miya ku haysi qordheer rubaantaa qurux iyo alwaad badan meel la qoysi ku lahayn ba iyadii qareenkeed qabna looga dhigaya qabad iyo rigeysali horta miya taa wali islahaydeen ina reerkaas ba lagu baayacaya iyo oo degeeliba laga la hawoodiyo fardihii waa si qawaacib noo yaalay iyo qabar samanka nagu dhacay qiimihii adduunyada kaga qanacnay noolow qulaha nin duban jiray oo qalan jiray dabuur magadli dabuurku waa awka yara dhicska ah yaalada qulaha nin duban jiray oo qalan jiray dabuur magadlo caayay sidigta qayraan iyo qorrogeeda xoor kale iyana waa qasiyo yaabe qiimihii adduunyada kaga qanacnay noolow qorf wiil ku jiray qowga iyo buuraha oo ka qashaafay ciida cas iyo tuur qabeenle iyo hawd iyana waa qasiyo yaabiyo hadal lagu qoslaayo qorshaaliyo ku soo baxay waxa tahay nin qaayibay qadafkiyo tamootida oo qoys iyo tol iyo xidid midna aan qadarinayn naas hooya qabanayno bala qaadataa tahay qabri baad galaysaa qabarin aan kugu dhicin hilbaha qadhin naga daago waxa aad nasaarasa ma qabne naga daa oo abtana waa loo yahay oo hore de waa la dhalay isaga inuu habar wadaagba waa kan leeyahay habar wadaag lagiya bari waa habar wadaag labadaba waxa dhalay raaskan ay isu heesayaan labadoodaba waa kan la naas hooya qabanay wuxuu yiri taa kaga jawaabay imisaan joogay heel weyn oo dadka inta hujuunteen oo hawsha idinku keenteen haddana ahayada dambiyo horsiga lahaydeen imisa hirfuushano hangalaha aridayseen anna aan hagognaayo ceebta aan hortaagna intaa halabsanayseen sangahoodiya nacab qaba anna himilo darasnimiyo hooyaday sinteedii iyo hilbaa la isku leeyahay oo hamranaya xidnimo isaga ismacaaninaya imisaan isiri hees hartib iyo dabadi halqabsi iyo mahmaalo huwan gaadhayay bixin intaan diidana hadalka hoos lagu dhaadhaco ama aan lahaa hooy limin hooyn ma doontaan hagalgelina hootada imikana han fadanimo iyo weligan han beenahay wada hawri jiray waxa la hafariirtan waa caara hoorka iyo mahan qaran cirweyniyi xasan oo adiya hibo hoos wada fuq oo shiro oo gabay inuu idii hadhay hubka ina dhigaysaan hadba ka dan moodaan soo hordhiga dadweynaha isdhiibaysaan iyo waxwaliin ku harsan yihiin waa jawaab marka halis ma bixinaya oo day wuxuu leeyahay inta soo jeerna anigu nabad iyo wanaag baan ka taliyay idinka diiday dhaleeyadii aftigii wixii xasan marka hees wanaagsan oo farshaxnimo leh oo qurux badan ayuu ku jawaabay wuxuu yiri qof hamiyay run haasaw iyo wax hirgalaya himile ama haatuf wuxuu sheegay jin hawada ka soo digi boqornimo ku heensay taadu soo wariye hadur hurdada aad ku aragtay oo ku tiri hoobal baata hafiya ruuxa heesaba hayeeshe adaa qabe inagu waysan doognahay inagu dawas garanayna hal kale oo ka sii daran oo ku horooray baa jiray habilaawo ina tahay adigaan hanti u dhaqan oo hayin iyo horaad geel midnaba xira ku soo hoyin baad gabadhu haliyay dhalayo hooyadeed horweyn ka diniya laga dhuray hub iyo maad iska haansanaysaa oo istidii laas qoray iyo ku hadal riwaayada ugu laanad helahayn waxaad ku hindisoonaysay ama guuto soo humiyo hirjida weerar nagu baa ama bari ka soo heeso halqiga jaanta wada mari ama timaha halabayso hadba hayla soo xidho ama habar jaclaa goba iyo weligaa hidaan ay helimada la taagno ama ruuxa raadani dhalanteedka hogol moodiyo hobyo roob ka bilig yiri haamaha la hoos orodo heemaalka qaalmaha iyo maansida ku hogo goobo waligaa badal sidaan waxba ku helimaysid markaad iyo riyo iyo ku helimaysid wuxuu yiri hadalkii daafuri waa duc markaan ka awdaba dhaka kala dabayla jiniya daadka ka furaysa markaan soo xidhaba dhaka kala furaysa dhinaca kala baay kala ka furaysa oo marra waxa leedahay daabti naga dahilbaan qeydin marra xa kala hadana iga hanjabaysa hadalkii daafuri waayo duc markaan ka awdaba dhaka kala dabayla jiniya daadka ka furaysa oo daaraantu igu badatay sidaan uga dabaasha inkastoo sadii xaq iyo loo daliishay aayaday dood abwaan dhageystaan oo la dardaarmo waaye badow duur ka soo baxay dhagdamani dabiib ma laho ma daweyso waanadu yi bal inuu dalaaqdiyo walihi dalaal yahay diirka aan ka qaade marka hore rag waa dama waxa uu ku dabar go'o libin daalib uu badanahay ku daalin geesta marka xigana deeqa iyo daayin baa risqa bixiyo ka daaweyn dignin calafku iyadana ka diga rugo marka xiga ilaa dura labadeenan duudood daawi lahaayeen iyo xeersanaan ka dagal kicin oo isma diidi jirin gabadh wiilu soo ardaa galay iyana ha u durbaanto ana daana gooniya iyo dambi beesha kama gelin oday daan ciroola iyo duqna meehi hawl gabay duqniina iyo ceeb dusha iga soo baxayna dadku iguma sheegay haddii duunya lagu helana dayactiraanu leenahayo darka 10 ilmaha dhalay
darka 10 ilmaha dhiga iyo 10 daxeeladii dhalabay dambarkooda iyo sixin ka durduuranaysaayo dulku malabla nimaasi nin bay ka dudaan abaaraha wariyi dulku malablu waa orgiga yara dhiciska ah waliba dhogor fiican aan waliba yeelan yala dulku malable waa halkii isna dabuurka ka sheegay tiibu wali leeyahay daan wuu xanimcadi baan haya ridii muddo isagu wata dulku malabla nimaasi nin bay ka dudaan abaaraha in dar yeelayaan dunjigii magaaladana dumarku kama fogaadaan waxaan ahay duriyadii uga bila darmaanaha iyo dahab qoorta loo sudo iyo damash guriga loo dhigo iyo dunta iyo shaalka idin baray xasan oo diiftiyo waxay dayradaadani ka daaran inta sheegay magaaladii waan haya riyo waan haya bal maxaa doonaysa waxa soo galay nin kale oo malaa'isna xasan saloogayo ay wali xaqii inanta asna ah la safan Ahmed Muuse Ali Bahalay Ahmed Liqooba isna la oran jiray حسن بو سلوغ اسنو ايه حسن هو البعض ciyaartoy baad haydi laakiin caawa ka yar shifta malaay kada kan gaaban baad malaay yar fudaysatay ha ii banaan ka bayd ana kan la garanaye oo dhulal kale la jiirayo malaay adigu caytanka iyo xasan aqoonin kan isagu waan xiiraya Ahmed kan wuxuu yiri raxan raad colaadeed iyo goobta la isku reegaliyay xasan oo ridada waran maalintu rag uu helo innaka ma reyn jirin caawa siraadka ku baday raadiyarihii doorey rug cadaaga noqon jiray baa ku cuskaday rakaabada ana sirheerka ka badiye rubadoo la jira mooyee ra'yiga kaaga tagi maayo qoorta laga gooyo mooyaane nin aqoon ka xaynaysa ma habuuri ninkan iyo ra'yiga kaaga tagi maayo rafankaada la aqoonin in yar iga diga ruga buur aniga in yar ibane buur ana heelada galay u banay ana la jexjeexay hore wuxuu yiri mar hadii gariir baxa ama aaris kala guro ama uu gigjibineed iyo maqlay inuu garnayl dhacay wagad lagu yaqaanayo galowgu wisu yeedha ogoldada dhibahantaba ma ku gaaray eelkii oo adiguna magigan tahay oo maydul gulubi dheer tahay Ahmed baa ku soo noqday wuxuu gudcurku yimaadayo gaabnaantu qarisaayo gaban bay u haystaan oo lama garan inuu yahay garhayi falaagale iyo ragii jiray gobaysano waa nin guluf colaadeed iyo soo dhameystay geelqaad oo gabashada ku tala galay gucleer ku daasado gowsuhu dhamaadeen iyo laga garhelay noo dhuntay ku yana niyar maaha malaa waa gugubihii maalintii goldheerood guutada hogaaminaya godobteenu ku lahayn iskaga gadaya leexada wuxuu yiri hadalkan inta miidhanahay oo hintiya baroortahay afka uu ka soo baxay anigu uma aqaan heese Axmedow waxa ila tahay adig iyo adeerka isma aragti dhaantaana inantiina u deysa gabadhii way dhaantay meesha aqoon labadii kuma haysaare maxaa keenay eelkii iyo aafooyinkii bari ma amuurihiin iyo ibtilooyinkiin baa soo amaamuraysa mise aarcun baa tahay ka ambaday dariiqii idinkaas dhaga adag ama aragti gaabnaaye mar hore sawnigeedii yiri bahal aaduna aan hayo ana fadu celin maysi ama aarmi raadsada ama bixiya aga bare ama ways aragtaane abrisku yaanu idin laynina alhiin haduu alla yahay aqalada ortogal guriga ku noqdo Ahmed baa ku soo noqday isagoo aad muddo waliba inuu careysan yahay wuxuu yiri rag waa garaaba ama waa gar qaatay adigu geed xilaa taayna dhanna guurti ka ahayn markii si aan falaba guray ama niman la gaagaxino guuleystay dhowr jeer oo gafaadhima helaata ama gacalkii midu deeriyo geeri wada tahay mayadoo kun godobood iyo gashi lagu leeyahay baad iska soo gudaysaayo mayadoo kun godobood iyo gashi lagu leeyahay baad iska soo gudaysaayo gaashaan adaan wadan hadba gola kaleeda gardara taqaanin iyo argadoodayaan talow aan gudin ku kala jaro nacaska gafoorka xun leeyahay adeed waxaan aqay oo markaas kululaati markaa way kululaati ha wuxuu yiri oo marka saru kululaato inantiba hadana mar dambe wax kale maslaxayso soonaysa wuxuu yiri waa galalafkiini iyo godob raadintiini ee soo kama gabowdan ama kaba gun gaadhaan dabku markuu gamaaraba gaasina ku qabataan iyo gardarrada sokeeya wax badan baa se gure baay iyo galangal oo dal oo rugay iyo hanad haad ku geelamay meel gamaada joogteen guulaha ka dhaxasheen iyo gasba ka dhaxasheen iyo guulaha matriiseen marse haddaan gadiya taariikh mudun ku gargaarayn dadku waa gabood maran oo tala inaan goliyad madax iyo kulay gumara dheer ma lehe Ahmed oo gubtahanyada iyo gaanka anigu aan ahay geesi kasto yaqaana gacmaha ulama yaala tage xaska gali gabaayo oo goos dambeedka nimiriga buu Ahmed wuxuu kaga jawaabay xasan oo jambeelkii shiifaagi dooriyaan liya jahweyn ka soo haray elka jicirif wada dhalay jalafsade ka weyna jimbaca iyo jaleelada iyo jirjiraha jimbaca iyo jaleelada iyo jibsaba u gaabna jaanyarihii iyo dooreteeriya jirkii guga jilalka iyo golaha cayd iyo jaariga la iman jiray jirjiroolihii midabada boqolka jaada noqon jiray ilaa qoorta laga jaro ama jeelka lagu rido kana jeeda lala dhiciyo ujeedada ku tagi maayay caawana jinooli rugtii jib cadaala iyo madashii ma joogaayo ma soo jahmadow yahay wali soo taagan yahay wali soo joogaa
wuxuu yidhi axmedow jaraaqada iyo baqal tiirshay jeegadu